marka hore xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid waxaad ku soo dhawaataa telefishinka caalamiga ee xisbiga UPD waa ku dhaw walaal soo dhawaado maasha maanta waxaan ka soo qayb galnay saanooda ognahaba munaasabada Cabdiraxmaan Odawa oo maanta ku muujinay inuu yahay musharax u taagan xilka qabashada maamulka Galmudug waxaad bal aan su'aalo ka weydiin doonaa maanta munaasabada markii aad dhageysatay Cabdiraxmaan Odawa waxaa jira mar walba ma aragtaa meel madax loo noqonayo musharax walba inuu hadlo uu dhaho waxaana qabana qaarkoodna ay noqdaan inay waxba qaban qaarkoodna ay noqoto inay wax qabtaan haddaba Cabdiraxmaan Odawa maxaad ka filanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ولا عبد الرحمن waxaan ka filanaynaa intuu sheegay iyo ka wanaagsan inuu qaban doono insha Allah taala sababtuna waxay tahay Cabdiraxmaan waxa weeyaan nin soo shaqeeyay shaqooyinka uu qabtayna dabcan raadkooda uu yaalo iyo dadkii uu la soo shaqeeyay maanta la taaban karo weeyaan marka waxaan dhihi karnaa Cabdiraxmaan wuxuu sheegay iyo intuu ballan qaadayba inuu qaban doono sababtuna waxa weeyaan nin la taabtay wuxuu taray iyo shaqooyinkiisa ay muuqdaan waaye waxa kale oo jira Cabdiraxmaan waxaan wada ognahay dhamaanteanba xil sare ayuu soo qabtay wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladda federaalka uu noqday maantana waa xildhibaan qaran inuu gobolka u noqdana waa codsi kaga yimid shacabkii iyo deegaankii iyo dad badan oo siyaasiyiin anaga waan ka midnahay inuu meesha maxaan ku raadin istaago una sameeyo sacrifice uu sameeyo marka Cabdiraxmaan waxaan rajaynaynaa inuu san noqon kuwii ballan qaadada sameeyay halka kaga tagay Gamaadiid waxaan kale ku weydiinayaa in Cabdiraxmaan Odawa markaad dhageysatay khudbadiisa waxyaabo aad maanta islaheed haddii Cabdiraxmaan aad jaanis ku hesho saana ayaan maaragtay ku bogaadin lahaa inuu waxyaabo la taaban karo tusaale kale 1 2 3 waxyaabo la dhigi karo oo aad islaheed Cabdiraxmaan Odawa mar alaal marka qabataba kula tali maanta jaaniska sidii aad u weysay maxaad kula talin lahayd Cabdiraxmaan Odawa Cabdiraxmaan horta jaanis ma weynin waa saaxiibo gaaran nahay waa saragnay talooyinkeega insha Allah taala si toos ah sidoo dadba u gaarsiin doona waxaan kula talinayaa waxa weeyaan meesha uu socdo horta wuxuu doonayaa waa xil adag xilkana diinteena waxa weeyaan haduu qofka aysa huri weynin oo sida maanta asiga maanta u damaaciyay meesha inay u baahan tahay maxaan ku raahday Nabiilaahi Yuusuf alayhi salaam markii oo ariga reer Masar uu arkay fasaadkii dhibaatadii ka jirtay ayaa wuxuu yiri halaga dhigo khasaanul ard halaga inni xafiidun caliim marka Cabdiraxmaan waxaan dhihi karnaa horta xilka adag iyo xaaladda adag ee meesha ka jirta ayuu isii balkaale samad bixi dadka waxaan kula talinaynaa waxa weeyaan xil waa culus yahay marka koobaad inuu horta Ilaahay uu baqo mas'uuliyadaas qofka muslimka ee musiilka ah ee maxaan ku raada xil adag qaadana إما حلكا وقاضي إنه عذاب كجلو إما وجنة كجلو النبي صلى الله عليه وسلم وحجر 7 يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله وحاجر تطبق فوض وحرك إلهي هرسن دون تمال وحرك لجرين وحاقفك كواد لقد جاي يعني وحلقد جاي محن كره هذا إمام العادل على قد قف إمامه وعادله marka wax kula dardaarmayo waxa weeyaan inuu horta dadka uu hoggaanka haduu Ilaahay ku guuleeyo Ilaahay u garto inuu cadaalad ku dadaalo oo imaam caadil uu noqdo midda labaadna waxaan kula talinayaa oo dhihlaha waxa weeyaan mas'uuliyadda adag inuu Ilaahay ugu cabsado haduu Ilaahay ku guuleeyo tala iyo maxaan ku raahdaa wada tashina uu arinta ku dhiso Soomaalidu dhaqan bay leedahay dhaqankeeda waxa weeyaan qofka si kasto uu kaaga soo horjoodo hadaad ixtiraamto oo ag fariisato oo la maxaan ku raahdaa wuxuu tabanayay wax kale aad weydiisaba wax badan oo ka filanaysa waxaan hayna kaaga imaanaya marka in systemkiisa dawladnimo tala wadaag uu ahaado cadaaladana ku dadaalan kula talin lahaa hadii Ilaahay uu ku guuleeyo nasiibkiisa ay noqoto aad baad u mahadsantahay xildhibaan Gamaadiid oo maanta aan ku qabanay Safari Hall iyadoo lagu qabanayay xafladii ama munaasabadii Cabdiraxmaan Odawa uu ku sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka maamulka Galmudug isagoo bogaadinaya hambalyo u diray waana u raacsi aad buu mahadsan yahay xildhibaan Gamaadiid